deegaano degmooyin dhul badan oo kayma ah muddana gabaad u ahaa khawaarijta arxanka daran ee shabaab markii ay ka saareen geesiyada xoogga dalka iyo dadka deegaanka. khawaarijtu haatan waa gawaabsi waqtigooda waana naflacaari. wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha dalkeena ee dowlad goboleedka Galmudug waxaa lagu soo warramayaa dadka deegaankan inoo soo sheegayaan in deegaano iyo tuulooyin hor leh oo ka tirsan gobolka Galgaduud khawaarijtana muddo ka badan 15 sano gacanta ku hayeen haatan ay faarujiyeen. khawaarijta itaalka daran manaxayaasha argagixisada al-shabaab oo haatan dareemaya qalqal iyo argagax xooggan ayaa baneeyay dhammaan degmada Ceelgaras iyo deegaanada kala ah Xiindheere, Xagarey, Ceel la hele iyo dhammaan tuulooyinka hoostaga kuwaas oo dhaca koonfurta gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug. deegaanada ay khawaarijtu baneeyeen ayaa muddo ka badan 15 sano waxay u ahayd goobo ay maamulayeen kana soo abaabuli jireen dhagartii iyo hagardaamada ay u maleegayaan ummadda Soomaaliyeed. haatan deegaanadaasi waxa ay yihiin kuwa haawanaya oo maamulkii argagixisada gacantoodii ka baxay. bulshadii ku nooleed deegaanadaas ayaa haatan dareemaya jawi degan inay ka nasan doonaan dhibaatadii khawaarijtu ku hayeen muddo badan. inkastoo weli ciidanka qaranka iyo kuwa deegaanka aysan gaarin deegaanadii khawaarijtu ka baxeen walow ay kaabiyo ku hayaan, haddana waxaa mar walba suurtagal ah in dadka deegaanku is abaabula ay la wareegaan dhammaan deegaanadaas maadaama khawaarijtii awooddoodii la burburiyey oo xitaa deegaanada ay joogaan ay ku haysato cabsi, walwal, argagax iyo ka cabsi qaba geesiyada xoogga dalka oo gacan ka helaya dadka deegaanka oo haatan dareemay in khawaarijta la iska dhicin karo. Cabdifataax Cali Xalan oo ah xogayaha degmada Ceelgaras ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug ayaa warbaahinta qaranka u xaqiijiyay in khawaarijta ay baneeyeen goobihii aan bilowgii hore idiin soo sheegay. aad ma hasan tahay maalmihii ugu dambeeyay kooxda khawaarijta oo la kulmayay jabhad u xoogan ayaa iskaga baneeyay dhammaanba deegaanada hoostaga degmada Ceelgaras ee gobolka Galgaduud sida Xiindheere, Xagarey iyo Ceel la hele iyagoo gabaad ka dhiganaya howdka ku dhow deegaanadaasi iyagoo cabsi ka qaba bartilmaameedka ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka iyo kuwa caalamiga magaalada ayay si ay ka qabaan darteed waxay u kordhaan boorka howdka ah. khawaarijta maalmihii ugu dambeeyay oo jab xoogan kala kulmayeen ciidamada dowladda waxay iska baneeyeen deegaanada Xiindheere, Xagarey, Jacagorleeye iyo deegaano badan oo ku hareeraysan markii horeba ay gabaad ka dhiganayeen ayay iskaga baxeen iyagoo maciinsanaya howdka kala duwan bariga fog ee gobolka. aad ma hasan tahay gulab xoogan oo kooxda khawaarijta ah deegaanada ay ka sugayeen bariga Galgaduud looga tirtirayay howlgallo aad u ballaaran ayaa qorshuhu yahay in maalmaha iyo saacadaha soo socda. inta badan guud ahaan gobolada dalka deegaanadii ay ka joogeen khawaarijta waxaa ka saaray oo dharbaaxyo xoogan ku dhuftay geesiyada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka. degmooyin, tuulooyin, deegaano iyo dhul badan oo kayma ah khawaarijtana aysan marnaba filayn in laga saari doono ayaa gacantoodii ka baxay. maleeshiyaadkii ugu badnaa, horjoogayaal badan, khawaarijta al-shabaab muhiimna u ahaa ayaa nolosha la dhaafiyay tan iyo markii howlgalladan bilowdeen. Yunus Duraan Cali, warbaahinta qaranka,